السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa waxiid waxaan rabaa inaan idin sheego sheekadeyda iyo goortaan yaraa waxay qabsaday marka aan dhashi kadib wax dhacay ma xasuusto laakiin marka aan 7 sano jiray wax dhacayo oo dhan waan xasuustaa. aabahay markasta hooyaday ayuu la dagaali jiray wayna isku buuqi jireen anigana la xiriirka dadka ayaan dhib ku qabay dadka lama hadli karo ilmaha inaan la dheelina way ii diidi jireen waayo waxay iga aaminsanaayeen foolxumo inaan ahay. dhibaatooyinka waalidiinteyda ayaa i xanuujin jiray mana awoodin wax gudaheeyo ku jiro inaan sheego. habeenkii oo dhan waan ooyi jiray maalintiina guriga ayaan keligayga geeska fadhiisan jiray. maalin maalmaha ka mid ah anoo jikada fadhiya wax cunaaya ayaa qaylada waalidiintayda maqlay. raashin cunista waan joojiyey cododkooda waa dheeraa aadna way u qaylinayeen. qolkooda ayaan u dhawaaday ma xishoonaysid miya sidee ayaad iigu sheegaysaa inaad ila guursanaysid intaan kadib ma kuu dulqaadan karo gurigaana ma isla joogi karno ma awoodid inaad ii dhasho waxaad ii dhashay wax fool xun waa niga tagayaa xaaskayga kale ayaan aadayaa waxaad adig ii dhalweyda iyadaa ii dhalayso. hooyaday aad ayay u oynaysay aabahaygana wuu soo baxay anoo isoo maray wuxuu igu dhahay foolxun yahow adiga iyo hooyadaada gurigan ayaad ku baktinaysaan wax idin duuga ama tacsi idin dhigana ma helaysaan. sidaas ayuu gurigeena kaga tagay. hooyaday ayaan u tagay waxaana isku dayay inaan garab istaago. hooyaday naxariista badnayd qof aad u xun ayay isku bedashay way i kala tuurtay waxayna igu dhahday maalintan ku dhal khayr dhan ma arkin wejigaaga iga qari inaan ku arka ma rabo. anoo ooynaya ayaan qolkayga aaday. naagta dariskeena ayaa hooyaday u timid si ay u qalbi qaboojiso ayadoo cunugeeda wadata. cunugaaga aad ayuu u qurux badan yahay ninkayga cunug sidaan oo kale ayuu rabaa. albaabka ayaan taagnaa cunug ayaa si xanaaq uu ku jir u fiirinayay maxaan aniga ku sameeyey marka ay inacayaan cunugaasna jeclaanayaan. hooyo ayaa cunugii dhigtay waxaan rajaynaa cunug sidaan oo kale inaad dhasho sidee ayay ku dhacaysaa ninkayga wuu iga tagay mar dhowna waraaqada furiinka ayuu siinayaa ha kaa cabsanin wuu kuu soo xiisi doonaa wuuna kuu soo laabanayaa. ma ii soo laabanayo naag aniga iga fiican igana qurux badan ayuu helay yaa waay ma taqaanaa haa waan aqaanaa laakiin arrintan cid kale inay ogaato ma rabo asiga xitaa ma oga inaan aqaano. sucad waaye waa midii laamiga agtiisa deganayd. sucad midii timaha jirjirtimaad ula jeedaa haa waa ayada sidee ayay ugu soo xadgudbaysaa nin naag kala qabo. waxaan rajaynaa in ay meesheeda gubato ayada iyo ninkaygaba gubtaan anigana aan sidaas ku qanco. ilaahay ka cabso uma waxiid qof wanaagsan ayaa tahay xasbuna allah wa nicmal wakiil dheh. waxaan kasoo tagay ayadoo sheekada wata qolkayga ayaan imaaday waxaana isdhahay sidee ayaa hooyaday ugu agdhawaadaa sidee ayaan ugu dhigaa inay i jeclaato sida ay u jeclaatay cunugii yaraa oo kale. waxaan soo xasuustay hadalkeedii ahaa sidee ayay ugu soo xadgudbaysaa nin naag kala qabo. waxaan rajaynaa in ay meesheeda gubato ayada iyo ninkaygaba gubtaan anigana aan sidaas ku qanco. waan kasii fikiray haa hooyaday ayaan riyadeedii u xaqiijinayaa lamadooda waan gubaa sidaasna hooyaday ayaa igu jeclaanayso wayna igu faanaysaa. habeenkii marka la gaaray hooyana jiifatay ayaan soo baxay anoo taataagsanaya si la ii dareemin. jikada ayaan aaday kabriida ama leetarka walaacadda ayaan soo qabsaday kadibna bakhaarka aabahay ayaan galay waxaan helay gasac bensiin oo haaf ah. waxaan dhahay intaan ma igu filna. jikada ayaan kusoo laabtay saliid oo dhan ayaan gasac kusoo shubay. banaanka ayaan u soo baxay dad dhan ma joogin jawgana aad ayuu u deganaa. waxaana sidaas ku gaaray guriga sucaad iyo meeshii timajaraha meeshii ayaan bensiinka ku bilbilay dabna qabadsiiyey. guriga ayaan u soo laabtay anoo tartiib u socda. hooy way hurdaysay qolkayga ayaan ku laabtay waana jiifay. waxyar kadibna waxaan maqlay dadka oo ordaya guriga sucaad. hooyo ayaa soo kacday albaabkana furtay. dadka meesha u socday mid ka mid ah ayay istaajisay maxaa dhacay dabka inaan damina ayaan u soconaa maxaa gubtay. guriga sucaad ayaa gubtay allamaya ninkayga. guriga ayay soo gashay kabaheeda ayay gashatay waxayna igu dhahday soo bax kaligaaga makaa tagi karo. waan diiday hay waad idhibtay guriga ha ka soo bixin ayay igu dhahday. marka ay baxday ayaan kabriida ama walaacadda soo xusuustay. jikada ayaan u celiyey hooyo habeenkaas ma soo laaban. salaad subax marka la gaaray ayay timid ayadoo ooynaysa. naagta dariska ayaa la socotay wayna sabarsiinaysay. dhib malahan uma waxiid shalay ayaad inkaaraysay hadda maxaa kugu dhacay. haa laakiin waan jeclahay waxa ku dhacay ma u rajaynaynin. waxaan isweydiiyey sidee ayay igu rajaynaynin shalay ayay dhehaysay in ay gubtaan ayaan u rajaynaa. waan u dhawaaday hab ayay isiisay waxayna igu dhahday wiilkayga wax dhac ma ogid mana fahmaysid xaaladan aabbahaaga wuu dhintay kaligeena ayuu naga tagay. hooy ayaa oohinta joojisay waxayna bilowday in ay isoo fiiriso ii ogolow inaan kaligayga ahaado. naagtii dariskeena ahayd ayay soo wootisay albaabkana way soo xirtay. waxay igu dhahday waxiid maxaa samaysay bensiin ayaa gacmaha
gacmaha ka uraayo. Aabi kabriida jikada ayay aaday, meesha ayay ka heshay. Alxamdulilah, walaacda inta ayay taalaa. Urka bensiinka intee ayuu ka yimid? Si lama filaan ah ayay saliida ku weyday. Waxiid, maxaad samaysay? Aabbahaaga maa dishay? Dadka ugu horeeya oo laga shakinaya anaga waaye. Maxaad samaysay? Sidee ayaad aabbahaaga ku dishay? Way isoo waday, gacmaha ayay iga dhaqday, dembiga dhan ayay iga tirtirtay, waxayna igu dhahday dabka waa la damin waayey. Lama meyd ah ayaa meesha laga soo bixiyey, nin iyo naag ayay ahaayeen. Aniga waxba ma samaynin, hooyadii ayaa riyadeedii u ramaynayay. dadka dhan inaan xanuunsanahay ayay ii malaynayaan, aanan waxba fahmaynin, laakiin hadalka keliya ayaan awoodin. wax kasta oo dhacay waan la socdaa. maxaa kaloo igu dhacay? la socda qaybta labaad ee sheekadayda. fadlan haddii aad channelka cusub tahay, waxaan kaa codsanaynaa like iyo share iyo subscribe inaad noo dhahdo.